sida hadda ay ku faahfaahiyeen mas'uuliyiinta iyo head teacher-ga ay ku faahfaahiyeen amin 4 saac ay tahay baa khawr waxana soo gaaray iskuulkan aad arkaysaan Sareedo Primary School in dhibaateynta leeg ay soo gaadhay qolkii ardayda ay seexan hayeen halkii hoyga u ahayd daweel buubisay khasaare inta leegna uu ka dhashay laakiin alxamdulillah hadii hadda maanta ana ka hadlaynin khasaare nafeed ana ka hadlaynin taa horta waa mahad xaq Ilaahay u sugnaatay waxa hadda laga hadlahay waa khasaare maaliyadeed dhibaatadan hadda soo gaadhay gurigan wada arkaysaan dhamaantii hadda waa burburay jingadii iyo saqafkii korodha waa ka buubay jidaarkii darbigii oo dhan asan dhulku ku soo dhacay marka laba arday baa si uga badbaaday Ilaahay ka badbaadiyay marka faahfaahinta hadda ay nasiyeen head teacher-ga maamulaha iskuulka iyo mas'uuliyiinta ka tirsan boardka guddiga Sareedo Primary School waad maqlayseen iskuulkan wuxuu u yahay laf dhabar deegaanada ku xeeran oo dhan buu laf dhabar u yahay waa boarding school waa halka ay iskugu imaadaan deegaano dhan oo halkan ku hareereysan halkay iskugu imaadaan ardaydii u soo waxbarasho doontaan arday badan oo waxa jiraan waalidiintood iyo dadkii dhalay ay tuulooyin kala degan yihiin qaar baadiyaha ay jiraan oo waxbarashadoodii halkan ay ka soo raadsadaan maadaama ardayga hooyadii aabihii ay xoolo dhaqatay yihiin ay baadiyihii xoolo la jiraan meesha kaliya fursad uu ka helahay inuu hoyna ka helo waxbarashana ka helo cuntana ka helo waa halkan aad arkaysaan marka maantana musiibadana qabsatay waxaad ka fahmi kartaa in si degdeg ah wax qabadkeeda loogu baahan yahay marka uu koowaad saaka arinta la ii soo sheegay isla markiiba waxaan la xiriiray xafiiska sub county-ga u xil saaran waxbarashada midda hoosare iyo midda hoosaba waan la xiriiray isla markiiba arintii waan ku wargelinay sidoo kale gaaris xafiiska county-ga u xil saaran dhanka waxbarashada hoose sidoo kale waan ku wargelinay ilaa iyo structures-ka ay ka kooban tahay waxbarashada xafiiska sidoo kale laanta dawladda sare ee Garissa County u qaabilsan waxbarashada ayadana waan ku wargelinay dhanka special program-ka iyo qeybaha gurmadka degdeg ee arrimahan oo kale markay imaadaan mucaawano si degdeg ah oo u fidin karaan sidoo kale waan la xiriirnay xafiiska UNHCR ee waxbarashada ayadana khabar baan gaarsiinay in arintan oo kale ay dhacday tilaaba aad loo dadajinayo daahinina ardaydii in dib u helaan hoygoodii fursadda hadana mar labaad ay dib ugu soo noqoto waad arkaysaan caawadan aan ka hadlayno ilmihii halkan ku hoyanayeen ilaa 250 arday baa halkan ku hoyanaysay saacadan aan taaganahana caawa meel ay ku hoyanayaan ma haystaan marka maadamtu waxay sheegtay in qolkii cuntada loogu qaybinayo ardayda inay caawa hoy u tahay saad arkaysiin boarding-kan 2010 valis 2010 maanta 2019 intaasoo yaa ilmaha ku heeraya 200 iyo wala wax la jiro cunug baa ku xigta saaka 4 saac inkastoo aan hadda ka maqnaa 4 saac wax la jiro markii break aadayn ee dabasha toofaan ku rufat si leeshay laba cunug baa ku jireen gudaha labadana Ilaahay baa ka baaday markay indiriyaanka maqleen ka baxeen marka sidan muuqato oo musiibo xun oo murugo leh way marka waxaan codsanaynaa NGOs county government national government marka hadda MB baan ma jiro jira MB-ga ma jiro illa education waxaan ka codsanaynaa gurmud degdeg ah waxay ilmaha hadda midterm baa la yiri midterm oo tadoob marka dhamaatay ma hoyd beeran akhlaaqna ma ahan karaan arska baan kala iska maqnaan karaan marka hoydka isaga ay ku sameeyaan saxaribta u yahay oo meel hoydka ka socon cunuga hoyd meel ku hoyd u helin waa fikiraya ee cunug fikirayna ma arsanaa male marka gurmad degdeg
oo ilmahaas meesha ku lahayn teendooyin ha noqdaan yaa aad u baahan waxaa dhacday inay dabeel oo duufaan ay imaato iskuulka meesha ilmaha boarding ay seexanayeen inay saameyso saacadana waxay ahayd 4 saac iyo 30 daqiiqo ardan marka break ay u soo baxeen laba wiil baa ku jireen gudaha kuwa kale wali may soo galin dabeesha xoog ahayd markay gariirisay ay ayagana iska carareen ka blogga dhan ilaa guriga dhan ayaa dumay waqtigaasna waxay 4 saac meesha wuxuu ahaa two wing doomal dhaha waa doom oo kala go'an laakiin oo laba meel ahaan ah oo baraandha dhaxda ku taal dining hallka oo banaana ayaan caruurtii caaw isku geeyo oo dhahay maatreesay qaata meesha caaw barya kulli miitamkii baa 3 bari 4 bari nooga dhartay xafiiska DEO waan la hadlay RC-ga waan la hadlay regional coordinator kulli waxaan dhahay hadii arintan haday dhacdo 3 barina miitam ka dhigantay maxaan sameeyaa kulli 3 bari hadda waan iska dul qaadanaynaa oo boarding-kaas ay caruurtu iskaga noolaanayaan dining hallka caruurtu iskaga dhex noolaanayaan waxaan ka baryaynaa dadka caawimaadka bixiyaan county government NGO-yaasha national government MP-ga iyo wax allaala wixii la hadlaalo UNHCR wax allaala wixii saaciideyn karo maadaama boarding-ka ilmaha ayna ku noolaan karin dining hallkana ay tahay meel iska flow oo dabeel aad u jirto waxaan jeclaan lahaa in si ugu dhaqsi badan inta miitamka hadda aan ku jirno caawimaad nolo raadiyo hatta Ministry of Education ay talaaba aad loo qaado oo caruurta nolo soo caawiyo